anigoo ah caaqil sayid caaqil qalile caaqil muuse kaanxin weyne nin shalay taa halkan ka hadlayoo sheeganaya weliba caaqil jiif caaqila ma garanayo goor la doortay ciyo dharaarun baan garanayna annagu usa dhalaa la yidhi af jiif caaqilla uu ku hadlayey mana aha baan leehay anu meel lagu doortayna ma garanayo intaa markaan ka gudbo waxa weeye suldaanka uu sheegayaa waa suldaankaygii caleemasaarkiisa iyo sharaftidiisa iyo doorashadiisa midaan isaga la kaashanayo oon ogeysiinayo ma aha suldaankaygu cabashuu soo jeediyey guryo la dumiyuu sheegayey lafaquu sheeganayey waa nin dhibigaadhayna ma afiicno waxa weeye taa halkaa baan kaga gudbayaa waxa weeyaan buurta faaraxiyo buuraha gadabuursigay la mid tahay dhulkana maanta lama qaybinayo nin walba halkii alla dhigay buu yaallaa oo dhagaxba halkii alla dhigu yaallaa 1940kii bay beer ahayd dadkii qabsaday baa ku dhexaasnaa cagaftii lafahaa rogaysay dirawalkii waday damiirkaa siin waaya inuu aaso isagaa dadka u sheego ka maragaday isagaa noogu yeedhay isagaa la weydiini askartii meesha joogtaa la weydiini shicibkii baa la weydiini taa uu leeyahay dhar wanaajaad lafa ka keentay inaad ka soo iibgayseen waan uga fadhiyaa waan sugayaa habar samaroontaan bartankeeda dhigaynaa jawaabtaa waxa weeye madaxweyne ku-xigeenku waa ninkaan dhibta ka tirsanayno madaxweyne ka horreeyaa jiraya ku-xigeenna ka horreeyey intaba waa la caayey waa la dhililinayey waxay dadka u dhimeen baa la sheeganayey cidnaba qabiilka uu kama hadlay markaan soo qaato daahirayaale nin adeerkay u ahaa reerkoogu wuxuu gaadhay heer xitaa candhada islaanta wax ka sheegaan cidna kama hadal laakiin ninkan jiif caaqil baan haylihi isagaa sheegay inuu ku-xigeenku reeryahaydii isagaa u dhigay hadalka sidaa koonka soo dhigay laakiin umaanaan haysan in ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto madaxweyne ku-xigeen u ah iyaanu arkayey waxa weeye isagu suldaan buu wax ka sheegayaa isagii baa laftiisii geeda goba iyo oodgey jiidhay waar afkii dhaqanka ama salaadiq ama caaqilka may hayn taasi waxa weeye jiingadihii iyo looxii iyo ubadkii bartiiba yaallaan weli bartii lafihiina bartiibaa dib loogu aasay warafada kida ma nin baa lafa soo iibsada aliya nabiya rasuul mana moodo in dhulka maanta la haysto in maanta dhul la bilaabayo boorama dhan walba ka martay meesha uu sheegayo waxaana looga maraya waa beerninde abtirsiintii saddexaad baa qaybsatay waxa weeye war bahasha markii hore nin baan isaynay bahabar celi oo tolkayaa ammaan bay naga mudan yihiin ismaanaan haysan waxaan u dirnay suldaan ku diray baaq nabadeed oo ninkaa naga qabta leeyahay baaqii aan dirnayna wuxuu dhalay ay iyo aflagaado taana halkaa baan ku dhaafay tan uu leeyahay 50kii sanaba nin baa ka dhashay cismaan guula geelooga intay qashaan bay candhada madaxa soo saaraan taa awowga iyo aabbaha ciyo dharaar dib u waraysan malaa taariikhda maad waraysan waa taariikh baaldahaba ku qoran taasi nin walba wixii gaadhayna habar samaroon baa ka warbixini inaad soo hadal qaaddo maanta may hayn laakiin adigoo rag waran ku taagay oo lafabar xadhiyay inaad tiraa waa la soo iibiyey taa lafteedu waa waran ku dhaqdhaqaajin waana xeeraad inoo dhiso ninba marunbuu meesha fuuliye kabtaana waad digatay intaad gaadhsiiso baan anna hadhow gaadhsiini ninkaa la gaadhsiiyo taliyaha qaybtu nabadgelyuu qaabilsan yahay waxba ka sheegi mayno faradheeri iyo abuur iyo midna ka sheegi mayno shaqadiisu haysta uuna kaa deg yahay
tilmaamina maayo adu laakiin waxa tiri waaraneed kooli alla shaqo ku qabso cidda waaraneed uu alla shaqada laga qabsanayana ma fahmin wali taliya qaybeed umada u dhaxeeyay weena daadna amar baaba siisay subhanallah warbaasha shaarta loo geliyo sheekadu ninka wax laga tabanayo ku joogto suldaanku dheer wanaajin kama hadal wuxuu ka hadlay boorama bartii wax ka dhaceen buu joogay una ka jeediyay baaqa iyo hadalka teen adag baan ku haystay oo dadka uu sheegayaan hayne kiiba waa adiga aliya nabi yaa dhaxalka ka reebaba waa adiga ciid dheeraad cayn walba dhalaalay bahasha saadin baynu nahayo jiif aqlaanu nahay aan korka ka marno korka waxa kaloon shalay warbaahinta ka arkayay qola sheeganaysa magaca makaahilka aan ahay anigu waar malaha magaca makaahilku wuxuu noqday godkii qashinka oo markaan ummadii oo dhan weydiiyay cid garataan waay aan si ogaaday inay qaar shaqaaleeyeen oo dabada laga riixayo war waxa weeye waa la garanayaa cuqaashi makaahilka waa la garanayaa salaadiintooda waa la garanayaa suldaanadooda waxa weeye waxaasi wax hawl u taala shaqaale maaha daba ka riixina arrin ma fuliyo